madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in shacabka gobolka Hiiraan ay mas'uul ka yihiin saldhigasho la'aanta maamulka gobolkaas. Axmed Tifo Xasan ayaa ka waramaya. iyadoo tiro dhowr jeer ah oo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu xilkii ka qaaday ama xilka qaadis uu ku sameeyay gudoomiyaasha gobolka Hiiraan isagoona u magacaabay gudoomiyaal cusub ayaa waxa uu ka hadlay saldhigasho la'aanta gobolka Hiiraan iyo waxa ka dambeeya. madaxweyne Waare ayaa sheegay in shacabka gobolka Hiiraan ay mas'uul ay ka yihiin saldhigasho la'aanta maamulka gobolkaasi waxaana uu ugu baaqay shacabka degan gobolka Hiiraan in ay si dhow ay ula shaqeeyaan maamulka si uu u dardargeliyo hawshiisa. madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa dhowr jeer oo hore waxaa sidaan oo kale eedan dusha uu kaga saaray xildhibaanada deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka Hiiraan isagoona sheegay in cadaadis badan ay ku saareen wasaaradda arrimaha gudaha ay sababtay in dhowr jeer oo hore xilka qaadis lagu sameeyo mas'uuliyiinta gobolkaasi. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale sheegay in xilka qaadis lagu sameeyo gobolka Hiiraan mas'uuliyiintiisa aysan wax macno ah ku fadhin balse shacabku ay tahay inay ilaashadaan mas'uulkii loo soo magacaabay ayna si dhow ula shaqeeyaan. maamulka adinka bedeli kara adinkaana haysan kara gudoomiyaha magaalada jooga hadaa isbaara dhigataan gudoomiyaha halkaan ka qabana haddii liiq laga talaga gudbi waayo muxuu halkaan ka qabanaa haddii deefow la tegi waayo muxuu halkaan ka qabanaa haddii qashinka magaalada laga qaadi waayo muxuu ka qabanaa gudoomiyaha iyo maamulka haddaa rabtaan la shaqeeya annagu inaan gudoomiye ka qaadno oo aan gudoomiye kale u dhiibno waxaan ka faa'iidaynaa ma jiraan adinka waayo waxa kana qaadaayo markaba inaan gadaal aan u noqdo waa ogsoon tihiin waxa magaaladan ka dhacay iyadoo maamul ka jiro lagu fiirsaday inta isbaara ka taal inta ka taal inta ka taal inta ka taal iyadoo leesla hadlin oon bari iyo quraxsan leesla hadlin oo kala xiran tahay joogteen saas raaliyaad ku ahaadeen mas'uul dadkii ka ahaayo magaaladaas mas'uulka ka ahaayo gobolkaas ka ahaay saas in lagu fiirsado midal qurxanta asagana hortiinaan ka sheega jidaa la mara wadxow leeyahay musmaarow leeyahay baabuurka hadduu taayirada ka banjaro taayirka waa laga bedela taayir kalea la gelina ilaahayow konton mitir ha socdo konton ha socdo adinkaa ama hortiisa gaariga musmaaro iyo qodxo ku daadin kara ama shaqeeya. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in shacabka gobolka Hiiraan ay mas'uul ka yihiin saldhigasho la'aanta maamulka gobolkaas. warkii wariyaheena Axmed Tifo ayuu u dambeeyay. aynu ku bilownay dhagxaan waaweyn ayaa xalay lagu jiray isgoyska Soobe oo kamid ah marinada muhiimka ah ee ku yaala magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi oo warkaas la socday stuudiyaha igula sugan. Maxamed Cabdi bal faahfaahin ka bixi dhagxaantan waaweyn ee xalay lagu jiray isgoyska Soobe iyo waxa la sheegayo. Maasantahay Faaiisa isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho waxa xalay la arkay gaadiidka loo yaqaano forklift-ka oo qaadaya dhagxaanta waaweyn oo lagu jiray wadada ama dhaxbartanka halka ay ka kala wareegaan gaadiidka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. dhagxaanta la dhigo ama difaacyada oo ah xarumaha dawladda iyo xarumaha ciidanka midowga Afrika AMISOM ayaa lagu jiray guud ahaan wadada isku xirta waa wadada ka timaada isgoyska Buuluxuubey ilaa tagta dhinaca isgoyska Soobe soo gaarta. dhagxaanta waxaa la dhigay marka wadada halka gaariga ka yimaada dhinaca xaafada Buuluxuubey iyo guud ahaan degmada Wadajir ee soo mari jiray xarunta la yiraahdo Villa Baydhaba in ay ku qaadato marka uu doonayo inuu tago dhanka isgoyska Banaadir in uu wareeg dheer ka soo sameeyo dhinaca isgoyska Laamiraha Soobe oo waxa gabi ahaanba la jaray halka ay gaariga kala wareegayeen ay ahayd taalada 14 October ee dhawaan la dhisay. waxay gaadiidka ku qaadanaysaa marka ka imaanaya dhinaca Buuluxuubey in uu soo aado dhinaca Laamiraha Soobe oo wareeg dheer ka soo sameeyay dhinaca wasaaradda waxbarashada xarunteeda kadibna uu dhinaca kale ee seedka wadada uu soo raaco ama dhinaca kale ee laamiga wadada uu soo raaco sidaasna uu ku aado dhinaca jihada isgoyska Banaadir markuu doonayo kan ka yimaada isgoyska kilometer 4 ee doonaya inuu tago ama ka leexan jiray halka ay ku taalo taalada ee doonaya inuu tago dhinaca Buuluxuubey isna waxay ku qaadanaysaa inuu ka soo wareego xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo iyadana ka agdhow isgoyska Banaadir. marka
gaadiidka waxa ay saaka ku shaqeynayeen mootooyinka bajaajka ah in qaabkaas oo markii horeba aan loo sheegin laakiin u muuqatay in loo tusay inay saas u shaqeeyaan ay gaadiidka isticmaalayeen mas-uuliyiinta degmooyinka hodan iyo wadajir oo aan arrintan kala xiriirnay oo ay ka gaabsadeen sidoo kale maamulka gobolka banaadir kama aanay hadhin xalay waxaa keliya oo la arkayay ciidamo fara badan iyo gaadiidkaas dhagaxaanta qaada oo dhagaxaan ku jaraya waxaana saaka xaaladda isgoyska Soobe ay tahay mid sidaas u shaqeynaya isgoyska Soobe wuxuu ka mid yahay isgoysyada muhiimka ah ama socodkooda ay dadka aad u isticmaalaan mararka qaarna waxaa ka dhashay isticmaalkaasi faraha badan in mashquul badan uu ka dhasho oo mar ay isku xirmaan gaadiidka oo waqti badan ay qaadato in gaadiidka si fudud ay halkaas ku gudbaan dadka qaar waxay rumaysan yihiin oo goobta aan saaka qaarkood kula hadalnay in ay fududeynayso ciriirigii mashquulkii ama jaamkii ka jiray wadada oo ay sidaas wadada ku noqon doonto wado hal seedna uu noqdo in ama ka gelid halka seedka kalena uu noqdo off oo ah ka bixid marka sidaas qaar ku dhigan qaarka kalena waxay leeyihiin hadda ayaba culeys badan imaan karaa oo waxaa kulmaya gaadiidkii markii hore qorshaystay inuu dhinaca banaadir u socdo iyo kii bulxuube ka yimid ee doonayay inuu banaadir aado oo iyaduna ay caqabad ku tahay inuu wareeg dheer soo sameeyo oo xarunta wasaaradda waxbarashada ama laamiraha Soobe inta ka soo wareego uu aadayo dhinaca banaadir halka kii lambar 4 ka yimid ee bulxuube doonayay inuu aadana ay waqti ku qaadanayso inuu ka soo wareego isgoyska ku dhow kan banaadir hormara xarunta wasaaradda arrimaha dibadda aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Maxamed Cabdi oo ka warbixinaya dhagxaan waaweyn oo xalay lagu jaray isgoyska Soobe oo kamid ah isgoosyada muhiimka ee Muqdisho ilaa iyo haddana lama oga sababaha rasmiga ee dhagxaantaasi loo dhigay maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in musharaxiinta qaar ay ciidamo la tageen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo la filayay in doorashada ay ka dhacdo Rijaal Cabdi Maxamed ayaa faafahinaya xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo laga dareemayay saxmad ku aadan ciidamo fara badan oo la sheegay inay la tageen qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed isla markaana ciidamada ammaanka ee magaalada Baydhabo ay ciidankaas walaac ka muujiyeen ayaa arrintaas waxa faahfaahin ka bixiyay maamulka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed Ugaas Xasan ayaa xaqiijiyay inay jiraan ciidamo fara badan oo musharaxiintu ay la soo galeen magaalada Baydhabo waxa uu tilmaamay in musharaxiinta ay doonayaan in ay ciidanka ku sugaan ammaankooda inta ay ku jiraan ololaha doorashada ee maamulka koonfur galbeed maadaama magaalada Baydhabo ay ka mid tahay meelaha amnigeeda aan la isku haleyn karin isla markaana mararka qaarkood ay ka dhacaan qaraxyo iyo weeraro ay geystaan al-shabaab wasiirku waxa uu tilmaamay in koonfur galbeed ay la socoto dhaqdhaqaaqa ciidamada ay wataan musharaxiinta si aan lagu fulin sababo ka baxsan ilaalinta musharaxiinta xildoonka ah musharax kastoo istaraatiijiyada uu rabo koonfur galbeed Soomaaliya inuu ku hago bulshadu ka dhaadhacsada asaga sheegan karo marka musharaxiinta iyagu markay xilka doonayeen way eedeeyaan oo hebel baa sidaas oo hebel bay dawladda wadataa iyagaas ay ku taala laakiin baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya laga rabaa in ay kala xushaan cidda ay u gartaan in 4 sano ee soo socota koonfur galbeed Soomaaliya lagu aamini karo ruuxu yahay musharaxiinta qaarta ciidamay la yimaadeen baa tiri waa sax musharaxiinta qaarkood waxay hayeen xilal sare ka hayeen dawladda dhexe qaarna waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo xilal sare aan haynin oo iyagana taafiyadooda iyo waxa gaarka u ah magaalada ku hayso marka wadankeena duruufaha ka jiro amni waa la yaqaanaa iska daa dadka xilalka doonaya shabaabku waxay dhibaateeyeen hooyooyinka iyo culimaa u diinka ay dhibaateeyaan marka qofka inta ololahan campaign-ka uu ku jiro nafsadiisa ilaashado amnigiisa uu ilaashado wax ka mamnuucay ma jiraan marka taasuna justification ma noqon magaalada Baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa horay waxaa ugu sugnaa ciidamo isugu jira booliis nabad sugid iyo weliba ciidanka militariga ee ka howlgala gobolada Baay iyo Bakool iyadoo musharaxiinta qaarna halkaas ay la tageen ciidamo aad u fara badan kuwaas oo ay walaac ka muujiyaan dadka shacabka ee ku nool magaalada Baydhabo sidoo kale labadii maalmood ee la soo dhaafay laba diyaaradood oo sida ciidamo booliis oo laga qaaday magaalada Muqdisho ayaa gaaray magaalada Baydhabo kuwaas oo tirada ka sii badinaya ciidankii ku sugnaa Baydhabo jabhadda hubeysan ee OLNF ayaa sheegtay in dowladda Itoobiya ay kala hadlayaan xuquuq ka maqan Soomaalida degta dalka Itoobiya Cali Xasan Cali ayaa faafahinaya afayeenka jabhadda OLNF Cabduqaadir Ciilmooga Cadaane oo la hadlay idaacadda Risaale ayaa waxa uu sheegay in dowladda Itoobiya ay kala hadlayaan sidii u heli lahaayeen xuquuq ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo uga maqan dowladdaasi
waxa uu sheegay in shirar wadahadallo ah inay ka dhici doonaan magaalooyinka Jigjiga iyo Addis Ababa si loo soo afjaro colaadaha ka dhexeeyay jabhadda iyo dowladda dhexe iyo dowladda deegaanka. waxa uu sheegay in Soomaaliya dalkaasi ay ka maqan yihiin xuquuqdooda aasaasiga ah sida awood qaybsiga siyaasiga ah iyo xorriyadda dadkaasi. wadahadaladii dowladda la faahfaahsan ay dhexmaraan dowladda iyo jabhadda dhibaatooyinka iyo khilaafaadka siyaasiga ee la isku afgaranayay si hoose oo mug weyn looga wada hadlo. Addis Ababa iyo Jigjiga uu ka dhici doonaa way ka ahaanaysaa mid oona la fiya dowladda gobolka mid oona la fiya dowladda federaalka mid isku jira inta waa dhici doonaa. in xalaadii la soo afjaro dadka Soomaaliya xuquuqdooda helaan oo horumar sameeyaan way hadaf waa cad yahay. oo siyaasi oo farabadan way oo ay ka tan ka mid tahay oo power qaybs ka mid yahay oo xorriyad siyaasi ka mid tahay oo horumar dhaqaale ka mid yahay oo nabadgelyo ka mid tahay. madaxdii jabhadda ONLF ee shalay gaaray magaalada Addis Ababa ayaa kusoo wajahan magaalada Jigjiga iyadoo halkaasi ay ka socdaan soo dhaweyn loo sameynayo waxaana wafdiga hogaaminaya Admiraal Maxamed Cumar Cismaan oo ah hogaamiyaha jabhaddaasi. maamulka Somaliland ayaa sheegay in xiriir ganacsi ay la yeelanayaan dalka Kenya. kulan ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan guddiga sare ee horumarinta ganacsiga ee dalka Kenya ayaa waxaa looga hadlay sidii Somaliland ay Kenya ula yeelan lahayd xiriir ganacsi oo wanaagsan. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Somaliland Yaasiin Maxamed Xiir ayaa shirka ka qayb galay waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay ka wada hadleen dowladda dalka Kenya. waxa uu sheegay inay aad uga wada hadleen xiriirka u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo Kenya wuxuuna sheegay in hadda kadib Somaliland iyo Kenya xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan ay yeelan doonaan. waxa uu sheegay in kulanka ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxyaabo badan looga hadlay diiradana lagu saaray waxyaabihii ugu waaweynaa ee la isla gartay waxaa ka mid ahaa ayuu sheegay in xiriir ganacsi oo wanaagsan Kenya iyo Somaliland ay wada yeeshaan. sidoo kale waxa uu sheegay in fursado ganacsi Kenya ay ka abuuri karaan deegaanada Somaliland si ay uga faa'iideystaan dhalinyarada shaqo la'aanta heese ee ku sugan deegaanada Somaliland.